مشروع waxa qayb weyn ka ah maygan wuxuu ku hadlayaa afkiisa cid hulunba ku hadlayay adaa dhul bahanta ah adigu inta dhibalay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh kulanti wacan wanaagsan dhamaan wada Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijkeena iftiiminta xaqiiqooyinka oo aan isku dul taagayo mayg cid hulunba oo mar labaad maygiisi qaatay barnaamijkan socda ee social media la soo geliyay kadib markii dadku ay kici waayeen dadkii reer Puntland iyo dadkii reer Waqooyi Bari ayaa diiday inay isdilaan waxa la yiri marka falsafad waxa la soo dejiyay ah xageebeynu dadka ka kicin karnaa waxa la yiri nimankan argagixisada SNM ee cabaad weynta waagi waxa lagu burburiyay argagixisada SNM ee lagu baabi'iyay media ahay marka media aynu adeegsano Saciid Hulumbe taladaas u qaatay waa taladii ugu foosho xumayd ee ugu doqonsanayd iyo aqal xumadii tii ugu weynayd ayaa Saciid Hulumbe loo dhibay waxa Saciid Hulumbe garowe iyo meesheeda laas caanood dadkii deganaa waa isleefleefayaan sababta waxa la rabay dagaalka markii hore in laga bilaabo garowe magaalada laas caanood deegaanadaas waxa ummadaas loo leynayo oo dadka ehelka ee wada dhashay ee wiil iyo walaal iyo abti iyo adeer iyo seedi iyo xidid isu ah la rabo in la isugu laayo waa shakhsi Saciid Hulumbe liyado oo siyaasadda ku fashilmay hooyadii ka guuri ayadu ma nagaado in hooyadii ka guuray ma ayadu abaal u galaya Puntland oo waxa weeye dad ehel wada degan yihiin ninka maamuli kari waayay u cadaalad fali kari waayay wax kale oran kari waayay meel walba xabad ka riday tuulo iyo ilaa degmo iyo ilaa gobol Saciid Hulumbe meel aanu xabad ka ridin gaalkacay ka soo bilow dhanka waxa ugu fog gaalkacay ee Puntland ilaa iyo sanaag baran eegay iyo ceergaabo inta u dhaxaysa ilaa boosa sadeeqa tan iyo garowe meel aanu xabad ka ridin Saciid Hulumbe ma jirto xaliimeed iyo u dambeeyay kaali shiishido baran baa ugu dambeysay baran dorratii koorasay markii xabadu ka dhacaysay oo ilaa caaqilka madfaca lagu dhuftay oo dadkii soo banaan baxay arinka ka dhiidiyay xabad afka laga galiyay oo baran dadkii lagu laayay bal hadeegi dhaar waad ogeeyay wixii ka dhacay boosaas sadeeqan warkeeda daa 9 jeer buu ku dagaalamay gaalkacayo qarnuu xabad ka riday taladii uu qaatay in la siiyay waxa ahayd waxa la argagixisada SNM waliba taladani waxay ka timid bisada madow iyo ninka cirral yaado argagixisada SNM la faasiyay tamaartay guriga Morgan ka qanuuda nimankaas waxa dheen warniyo hooso anaga meeshan la ka dumiyay aanu ka baabaanay social media hadii aad nimankan isku diri kari weydii oo waxa weeye maanta hartii isleyn la yahay oo si kasta xabad u riday waa talada la siiyay waniyo social media baa la yiri arrinkan gali dhaqaalana ku bixi adduunkii maanta wuxuu noqday halkaas dadka laamiga ku dhufteen bideen waa runtood badii si loo eego sababtoo ah waxaan arkayaa ifafaaraha maanta media ka jira iyo sida wax u socdaan ayaan u jeedaa marka taladan waxay noqotay tala cabaad weyntii argixisada SNM maadaama waxa la dabninkii ku gubtay baa la weydiiyay muqt halkaasna la ka baabiyay bahasha haday nimankan isleen waayeen oo si walba xabad uga riday oo ay dhaqaaq la yihiin meeshay bahashu ka qarxaysaa waa media markaas mid yar iyo mid weynba Saciid Hulumbe khadka ugu jira oo lacag ku bixinaya xalalkii xitaa kuwa cabaad weyna mid YouTube bariga hore joogu jiray oo iska dhigi jiray taariikhda inuu wax ka sheegayo hadda TikTok ka dhacooya anagu ido radaan hay anagu iyo Puntland wariya Puntland iyo taqaan wariya eegi Puntland waayo wallahi billahi tallahi cabaad weyni argagixiso wallahi waad riyoonaysan oo billahi waad riyoonaysan oo tallahi waad riyoonaysan Saciid Hulumbe inaa wax faraha ugu jirin hal mar oo siiriga ku yeerino waa wallahi ugu filan iyo billahi tallah eegi isagaanu qabanaynaa mar dhow xabsi gelinayna cashuurtii Puntland iyo lacagtii imaaraadku lahaa media la soo geliyay anuguna ballan ilaahay waxaan ugu galay eegi sidaan argagixisada SNM ula diriray si ka xun inaan Saciid Hulumbe adiga iyo kooxda wata ee fayraska ee doonaysa maanta caruurta Puntland iyo kuwa Waqooyi Bari iyo waxa way hartay inay madaxa isu geliyaan oo maalin walba 10 wiil laga dhimato hadaan adiga iska ka qaban weyno maradaan ku jirno kuma jiro qof kasto oo damiir leh oo dadnimo leh oo hartiya oo magaca aanu qof xayawaan ma sheegin qof Hulumbe noocaaga aanu ka hadli maayo laakiin qof aqli leh oo garasho leh maanta 2025 inaan adiga dartaa isu dillo oo xasan munaafiqi aad shalay saa u leefleefisay oo farmaajo saa ugu bireeynayay aad tiraahdo maanta waa ay dhalay
oo aanu ka dhageysano markii laga diiday atri harti hayslaayo oo bursangeli iyo majartan iyo morcase iyo dhulbahanta cidiyaan noolaan meel walba xabad laga bilaabo eegay maantana aad miidhihi maraysid wuxuu yiri tii horaan hibanaya tanamay hortaala isu naalle ee waxaan rabaa dugatoor waxba kuma dhex jiraan waa zero madaxweyne ku-xigeenka Puntland buu ku magacaabay waa asal madoorshaha isku dhufashada Mike baa loo dhiibay Saciid baa wuxuu yiri kac oo inta soo dheh ninka sidaa leh oo nin dhulbahanta ah bal hada hadalkii uu fiirsada ninka erigan aad maqli doontaan ee afkiisa ka yeerisa waa nin dhulbahanta ah wuxuu ku magacaaban yahay inuu nin dhulbahanta ah yahay waa virus wuxuu leeyahay anaga iyo Somaliland wada shaqayn baa naga dhaxaysa haye amnigaanu ka shaqayn jirnay amnigaanu ka wada shaqaynaa haye waxyaalaha indhala'aanta ah ee dulinimada ah ee baktinimada ah gaajadu markay ka tira badato maartay gaajadu markay ka tira badato qofku waa taga beelaa indhaha waxba kama arko wax kasto loo sheegay waxba ma maqlo waxna qofku ma arko waxaan media wada fadhiya waa dad gaajaysan dhagahana waxba kama maqlaan indhahana wax kama arkaan ka waran nin ka shaqaynaya hooyadii iyo aabihii iyo walaalihii inay dhintaan oo nin kale in adeerkoodii dilo ninka ka shaqaynaya ka waran maanta ma jeerteen iyo dhulbahante inay madaafiic isla dhacaan oo islaayaan arrintan arrin dhow maaha ma dhaweyn 2025 bilowgeedii baa la soo bilaabay oo Somaliland dhaqaale ku bixinaysay Saciid Hulumbe horgalnimadiisu 360 digrii buu wareejiyay isaga iyo Faris ku wato baashi Saciid Hulumbe hadda waxay ka maraysaa 60kii Somaliland baa dawladnimada keentay sheekada cabaad weyn akhriyi jirtay maqalas argixisada salam 60kii baanu calan geynay calankeedii dawladnimaanu geynay dawladeedii calankii buluuga 1954 Muqdisho ka taagnaa ee Hargeysa laga taagay dib Muqdisho loogu soo celiyay riwaayadii beenta ahayd ee dadka loogu sheegan jiray tiibu maanta Saciid Hulumbe media la fadhiya ولي لحظة حرمتي يدور واحد كان على كيف كان دلهم أبال قدي هبل بقول أفشي على شماكي عقال أنالايز بكن هاي أنالايز هاي دول بهان تقولي عدو بوها وعوي متشرتين دول بهان تقولي اللي تقال مجري هاي متشرتين عدو يعني لا بكون يشن إلا بعتن أنا قلت تاجن أو نول الدنيا قلت كذا سرنا بواحد الدنيا عراد ريقنته إيجي إلا قد حنا اللي يهرتي إهلكي رفيقي ولا لمدي طول لمدي واحد يريني ولا الكي جيد وجرو جيش نقوم دني قلفت الكيسة ما أنت وحكوا تقال ما يو بتلان ولا يجيني ما يو قادم ما يو حسن وحرقان كوشري وادي وأيو ما أودوا لي هبة بدقان وكلي دقيقة هبة ما وحوا هيستبع ما هديجي وح وكبوتين يو وشالنا فرماشة إنه وجهنا وكجور عي maantana doonaya dhulbaanta iyo majeertan iyo sangeli iyo inay isku laayaan isku baabaan soo waxaan anagu leenahay maaha soo deegaanadeedii maaha soo dadkaygii maaha dadka jooga baran iyo kuwa las aanu joogi kuwa garow joogi kuwa boosaas jooga soo dad wada dhashay ehela maaha war damiirka xageedii ka aad war dadnimadii xageedii ka aad war diintii xageedii ka aad bal hadda eegi waxa aad ka faa'iideysay maanta dad wada dhashay ehela isku dirto media u soo fariisata war maxay tahay wargobannimada ka helaysa aniga ii sheeg ila waxaad doonaysaa harti inuu islaayo Soomaha maxaad ka faa'iideysaa adigu waxaad faa'iideysaa waa shilimaad lagu siiyay inangumeed dhalay baana tahay dadku waa dad wada dhashay eedada iyo habreerta iyo siidi iyo xidid iyo xigaal baa leeyahay dhibaatada maanta reer ku dhacda adiga kugu dhacday tagarow ku dhacda adiga kugu dhacday lascaan ku dhacna adiga kugu dhacday laakiin Saciid Hulumbe waxa ma yaqaan maygan marka kan dhigayso waa nin dhulbaanta wuxuu nagu sheekaynayaa annaga iyo Somaliland baa waxaan leenahay amniga ka wada shaqayn jirnay amniga waa dhulbaanta ninkaas amniga ka wada shaqayn jirnay Saciid Hulumbe toos baa ku dhex jira sujuudaan iyo cir hal fikir bay qabaan Somaliland wax la yiraahdo yoocada ilaa iyo qow inta u dhaxaysa inay Somaliland tahay oo Ingiriisku uga tagay bay aaminsan yihiin الرساس مدحوينه كوياهي وحو مدحوينه كوياهي إن قو يماشي لي هذا يعاد يقرب دوشي دو Somaliland تاهي Saciid Hulumbe wuxuu noo sheegay inay heshiis soo wada galeen waa Mike Lugator waa Mike sababta nin dhulbaanta ah oo dunida guudkeeda saaran maanta
oo ku yiraahda argagixisada SNM baan cilaaqaad leenahay in cambaashe kama duwanaa in cambaashe marka dadku waxay kala saari laayihiin kooxdan yar ee fayraska ah ee Saciid Hulumbe hogaaminayo iyo Puntland waa deegaan waa dad gob ah oo nasab ah oo yaqaan dadku waxay isu yihiin isimkooda aqoonyahankooda dhalinyaradooda dumarkooda kulli laakiin Saciid Hulumbe ballan ilaahay waxa igu ah anagu ku qaawin ba horta adigu isqaawisay laakiin ballan waxa ah si fiican inaan diirada kugu qabano ninka nooca u hadlaya waa Saciid Hulumbe ee maanta la Soomaaliland waa dawlad gaar ah hartinaha islaayo dhul bahantana argagixisada ku sheegaya wuxuu u socdaa madaxweynaha Soomaaliya ilaahu aqliga hanaga qaad oo ilaahu garashada hanaga qaad oo ilaahu damiirka hanaga qaad oo ilaahu dadnimada hanaga qaad oo ilaahu diin la'aan hana dhigi ninkaas Soomaaliya raan u sharaxo balse ceebta iyo foolxumada ka soo kolayday wuxuu yiri ninkii hanlaba hablaha la hadlay Hulumbe ma soo taagaa ninka Saciid Hulumbe la dhahaa uu qof maran waxaadu waxba uma dhimayso ceebta ka soo raacda teendada Muqdisho waxba u dhimayso alaansa ku weydiiyay idaawanayee maanta ninka tolkii harti marka la fiiriyo Soomaali marka loo eego harti waa jifi kamid ah jifiyaha Soomaaliyeed kamid ah inta doona tira la kala deegaanka doona hadeegaan laakiin waa laf weeye waa jifi harti la yiraahdo ninka maamul kari waayay ee u kala xaq soori kari waayay ee isku diraya maanta Soomaali dhibaato inta lagu geysan karaa Muqdisho iyo Hawiye dhibaato inta lagu geysan karaa Hawiye waa aqal badan waa ogyihiin waxaan inuu xaadiq yahay doqon yahay xog ku dhex jirin inuu faaruq yahay waa ogyihiin awalna anaga u ceeb asturjino dhijina dagaalku nala galay khasab baanu dagaal ku gelinay waxba nala mu gelin anaga khasab ku gelinay sababtoo ciidanka oo dhan ba ka soo yaacay hubkaad arkaysaan reer ba iskale jifi waa loo leeyahay ciidanka imaaraadku samaystay mooyaane BNBF liyada maana ciidamadaad maqasheen Puntland oo dhan daraawiishtii birmadiftada aabaheed ku soo wada dar waa ciidan qabiil weyn reer walba waa soo kolanaysta anaga ma ciidankayga dhukul ban madani baa diray tusaalaan ku siinay nidii shaabaan baraday maalinkan dagaal galay ma dhukul baa jalal dhukul baa waxa diray Saciid Hulumbe baa diray shilin naguma darsan anaga lacagta jeebkayga ka dhiibanay hubkaygii buu ahaa raggaygu ciidankaygu buu ahaa calafkana anaga dhiibanaynin yuu diray marka ciidanka horsgali buu diray ku Umar Xamuud buu diray xitaa ku Ismaan Xamuud baan u diray soo ka dhashay ku Dubays buu diray ku Tiil uu diray baradaygi kaski qabiyo geeso guule masaga diray ma direen anaga u ceeb astureynay khasab buu dagaal ku galay istaad raaci maanta waa ka cabaad weyn la socda wuxuu yiri ragga laxaha si dhowriyo dhaqasho waa geel ragga meediyaha ku jira ee maanta ka shaqeynaya harti inuu islaayo ilaahay baan ku dhartay gundahaaga ayay imanaysa horta inaan gumeed waa inaan gumeed oo sharaf ma leh baradaygi gaajo kabala horaan u aqaan waa ninkii lahaa boosaas xabad ka bilow aftaaxo boodariyo waxa weeye Maxamed Salmaan la dagaalan oo gub magaaladaada maantana isagoo la leeyahay gurigaagii iyo raggaaga iyo guryahaagii baa anaga haysana waa ka kabaleefka ah baladaygi laakiin ragga kale waxaan leeyahay baraduun magac baa ka hara adduun magac baa ka hara waxaad maanta horinaysaan oo aad ka shaqeynaysaan waa ba iyo hoog iyo balambal iyo wax taariikhdu wallaahi billaahi tallaahi barika maali Saciid Hulumbe eegi idinku si kale u hadlaya oo Saciid Hulumbe cidla idinkaga dhaaqay baa soo bixi doontay waa iga talo nin weyn eegi haddii dhegta la jaro dollarka hara waxaad maanta ka shaqeynaysaa waa tolka iyo ehelka iyo walaalaha way eegi waxaad isku diraysid barnaamijkaas hadduu soo gaaro si share garay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.